kadib markii uu dhawaan si rasmi ah u bilaamay imtixaanka teeramlaha ah ee maxadka diiniga ah ee barashada culumta shareecada iyo luqadda carabiga ah ee Al-Furqaan ee magaalada Buuhoodle oo maxadka ugu baaxadda weyn deegaankani gobolka Cayn ayaa waxaa saakaasi habsamiye u soo gabagaboobay imtixaankaasi oo maalmihii ugu dambeeyay u socday ardayda wax ka barata maxadkaasi Al-Furqaan ee magaalada Buuhoodle waxaana goor aanu booqnay saaka maxadkaasi aan ku soo aragnay arday aad u tiro badan oo ku faraxsan imtixaankan u soo gabagaboobay iyagoona ka hadlay dareenkooda ku aadan imtixaankani iyo waxyaabaha ay kala kulmeen. alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidina muxammad alayhi wasallam ama ba'd walaalayaal halkan saaka waa macadkeeni xudun shareecada lagu leeyahay jiray macad Al-Furqaan sidaad u keenoo arkaysaan saaka waa gabagabadii imtixaanka 14 bisha oo bilaabay 7 bisha maalin talaadadii bilaabay maanta oo talaadada kalaana ku dhamaaday alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahi mahdi haddaan ka sii warramo bacadku sii kala duwan yahay imtixaankiisu qayb hadda ardaydu joogtay iyo qayb saaka weegahay way jirtaa ardayda waqtigeeda markaan eego way jirtay ardaydu way kala duwan tahay qayb leeyahay iyo qayb maalinaya waxa dhacday imtixaanka ardaydu inay wada gasho alxamdulillah rabbil caalamiin si fiican ay ugu wada guuleysteen arday kala duwan marka la soo keeno arday walba ahamigiisu sibi yahay tan ardayda markay soo timi arday isku wada kalsoonaan iyagu isku fasal wada dhigan jireen bay yihiin xagga kale imtixaanka qaabishiisa markaan eego boqolkiiba ardayda dadaalkeeda iyo macalimiinta dadaalkeeda iyo joog aad u fiican oo arday walba niyad uu ku iimaanaya isagoo wax qish la'aan ama wax qorqorista la'aan ay soo istaagaya arday walbana wuxuu cuskanayaa xadiiska nabiga man qashana falaysa minna oo yiri marka arday walba saas sirteeda ayuu wuxuu oranayaa wixii qisha xaraan ayuu yahay aniga ayuu dulmi ugu noqonayaa alxamdulillah rabbil caalamiin way fiican tahay imtixaankaygu saaka aad buu niyadeedu u fiican tahay waxaan aragnay inay nooga maran tahay imtixaanku la qishqish wala qaqaac la dafta faraadid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كان وحان هذا مانتا نقول معنا يوم كتير يا إله سبحانه وتعالى ونقص قبل امتحانك نصف العام كا أو محل التارم كا محل ساد راد الله سبحانه وتعالى أولا أمها النقنا نقول دمين محل نقول صاب بلاوي نبتقليه نون السورة قليه إن نبتقليه محل الله سبحانه وتعالى ونقول نعمية أن كنا بلونه ما أنت أن شوقنا نكون قبلنا ساد راد وحن آدي كفر حسن هاي الله سبحانه وتعالى نعلى ونسيه محل ونقص قبل نبتقليه أنسقان تلاهين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساك آدي آد بنو فرحسنا هي إني صوب بقتي بهذا أفضل مقالة جوّر كعين وساك صوب بقتي محد الفرقان علوم الشريعة اللي قلته ونصوب بقتي ساكا يلا أرضي قريب كم من ساك قبل هاي امتحان كي نصف عام كي ساك صوب بقته ساك شوي قهتان كورهم بقول كي بسقاشن بقول بساك آد بفرحسنا هاي امتحان كساك آد نور ماضي ونور بلا ما يتدود بيشن ما أنت آخر يتمنى بيشن تاين النور ماضي سديد عشان الناس عدي امتحان وح كيمي أو عقبة سيد اللي ترى قلي يقولوا يوصل معلمين يوصل فرسميين مركب هرشح الأرض يتبتي لو قلنا يقول ماضي وح عقبة كيمي يوح قصة يمكن من هاي امتحان كمان كان يبقى امتحان ما هو رنسيو كديشري سديد سنة وكفري سنة كم بانسوا قلي سديد سنة كهرية امتحان سوق لي مادها امتحان كل سديد سنة كهرية مثل السوق الاسماء اللي يكتب سديد سنة كهرية امتحان كان سنة في كهرية سنة فقان كلي بس سديد سنة كهرية يقرأ قاسم ويا حاجة المادة مركز جلسي المادة أدي وحالة بدأ أرجع مادة كديجانا إنه وحكشوا مادوينك وديجانا إنه وحكشوا أما أرجع لا فردي وكشوا أما معنا كل في سبوع شيء مركز أرجع كوعكا مركز معنا كل شيء كانوا وحيمانسا أرجع 10 في سنة ديارية ووقت فرق بين يجي بدن هي أرجع أعداد الموجين مركز معنا كل شيء أرجع أما قصة ديارين إن السينما كي دلالة الموجي كي إسكفرية أما قصة ديارين سنة وحن آدي فرحسن هاي
aqoontii iyo dadaalkii aanu bixinay qof walba dadaalkii uu bixiyay inuu waraaqdiisa loogu soo qori doono qof walba wuxuu keensanaa in halka lagu soo dhigi doono markaas ka soo gashid maxadka ee albaabka hore ilaa 4 qof baa isdaba taagan macallin oo ardayga kasta baaraya hal qalin waxaan ahayn cid la soo geli mayso maxadada marka iskuulada magaalada marka maadiga la soo geliyana waraaqaha qof waraaqdiisa wata iyo sheego wax soo gashada iyo waxa ay iska baahan qof la soo geli jiray hal qalin waxa ay soo geli kursiga marka saa ugu soo fadhiistay waraaqda marka saa lagu dhibay imtixaan ku qoran rogmaysid ilaa ama ardada oo waraaqda la wada siiyo mooyaane waraaqda lagu dhibay ma rogi kartid haddii rabtina waxa lagu aqoonsanayaa inaad wax qashtay waayo waxa la doonayaa dulmiga laga cararayaa in arday waraaqda ka hor arko oo su'aashii uu ardada aan waraaqda la wada siin in ardayda waraaqda si arko waxa qornaa oo si akhriyo oo ka horeeya hadhow ama ka horkaco ama qof kale weydiiyo ardayda wax loo qaybinayaa diidiya marka sanadkan waxaan dhihi karaa imtixaankii ugu xalaalsanaa ee ugu sharafta badnaa baasanadkii koowaad kale alxamdulilah rabbil caalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله سبحانه وتعالى ومحادث كله ما أنت أي تاريخ التهي أفري طوانكي بشي الكواد وفقسن صدحي طوانكا بشي صدحات سنة هجرية كلشن بقول نافر بقول صدنيشن وكبيغان أفري طوانكا بشي جانوري كوني أفري طوانكا وحماعت كان الفرقان كسو جوابي امتحانكي تيرمكا سنة دوسيتك كواد سنة دوسيتك لبا كوني صدحي طوان لبا كوني أفري طوان إلهي سبحانه وتعالى ما تسكره امتحانكاس أصوبي روضي تدوادي بشي تدوادكي هوري والسعودي تدوى 10 وحوالكا نقصو جوابي 200 iyo 2 arday oo kamida ardayda dugsiga sare الفرقان للعلوم الشرعية والعربية في بوهول waxaa jawi wanaagsan buu nagu soo gabagabay imtixaankii iyadoo maartay ardaydu ku faraxsanaayeen arkiseen qaabkii u fadhiyeen iyo say u diyaarsanaayeen iyo ardayda hadalkoodii aan rajaynayno maartay inay guule iyo meel sare gaaraan dhammaan waxaan u mahad celinayaa sidoo kale ciddii ka qayb qaadatay ee hawsha ka soo shaqeysay maamulka iyo macallimiinta iyo ardada sida fiican imtixaanka u soo diyaariyay iyo bahda saxaafadda oo iyaguna had iyo jeer nagala qayb qaadata macadka iyo horumarintiisa bulshada markaa waxaan ugu baaqayaa inay maaragtay ka soo qayb qaataan ardadooda goobta wanaagsan culumtii sharciga lagu baranayo ay ka qayb qaataan isagoo oo u furan gelin hore iyo gelin dambaba habeen iyo maalin macadku uu leeyahay marka laga yimaado macadka sare oo habeen iyo maalin u kala baxa wuxuu leeyahay qaybo hoose oo iyaguna cidaadiya oo galabtii iyo habeenkii dhigta oo iyaguna imtixaankooda u dhamaaday ilaahay wuxuu kaloo macadku leeyahay dugsiyo kale iyo hoos taga oo iyaguna u shahaado siiyo macadku wuxuu ku xidhan yahay jaamacadda bariga Afrika ee fariceedu Boohoodle yahay xarunteeduna tahay Boosaaso waxaan ardaygu helayaa shahaado uu in badan oo kamid ah wadamada dibadda oo carabta u badan uu ku helayo arday badan oo diray haddana waxa jirta arday muqaabala loo diyaarinayo inay helaan jaamacadaha dibadda ee carabta u badan sida Suudaan iyo Yemen iyo Sacuudiga إلهي سبحانه وتعالى ويدسنا إنه نمعنا إنه كمله آمين وبالله التوفيق. على نبينا ودين وصلي وسلم على رحمة العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا عقوب رحسنا الامتحان كيغانو قلي نوغو بلاوي فرحة نوغونا دماني إن شاء الله ما أنت نوغو بس فرحة أنا كفر حسنا هاي إلهي أكابان مريم معلمين تيادا نوصل ديار سيد